asxaabta isticmaasha one xbet asxaabay haddii ay ku qabsatay weli saan oo kaleeto ama weli makugu dhacday qaabkan oo kaleeto in adigoo raba inaad lacag kala baxdo one xbetkaaga uu kusoo dhici waayo wax kooda haddii ay dhacday ama ay ku haysato ama aada la kulanto ciladaasi inuu kusoo dhici waayo kood ama telefoonkaagii aad ka weyso kood adigoo raba inaad withdraw sameyso oo lacag aad kala baxdo sideed u xalinaysaa marka barnaamijkani ayadoo maaragtaa aad la kulantay ama haddii lacala ay kugu dhacdo sidaad u xalin lahayd ayaan rabaa inaan kula wadaago sidii aad koodka u heli lahayd waa haddaba sidii aad koodka u heli lahayd waxay ila tahay barnaamijkani asxaabta inta badan iga soo codsanaysay oo ahaa inaan kasoo hadlo one xbet qaybta ugu muhiimsaneyd oo muhiimadda ahayd waayo abkani dad badana waxay yidhahdeen kasoo hadal laakiin ka hadalkiisa micnaha ma aana hogaa maaragta fursad maana helin laakiin hadeertan waxaan rabaa inaan la wadaago qaybta ugu muhiimsan markaasi ugu muhiimsan waxay tahay inaad lacag ka sameyso lacagta dad ka sameyso ay ku bixi weyso waa caqabad marka waxay ila tahay aniga qaybtani oo inuu kood kuusoo dhici waayo ama aad teleefonkaaga kood aad ka weyso sidii aad ku heli lahayd oo lacagtaasna aad kula bixi lahayd oo mar kaleetana uusa maarata haddii koodkaagana mar walba meel uu diyaar uu kugu ahaanayo inaa maarata waxay ila tahay marka inay tahay arinta xalka mudan ee markaasi meesha ugu muhiimsan ama qaybta ugu muhiimsan ee one xbet dadka iga codsanaya inaan kasoo hadlo aan maarata aan ku qanci karaan marka dhammaan saaxiibada qaaliga waxaan ka codsanayaa haddii janalka markii kugu horeysa ay tahay ee booqashada ay tahay waxaan kaa codsanaynaa muuqaalka aada laag saarto asxaabtaada la wadaagto haddii aada hore nala joogtayna dee asxaabta hore nala joogtay aad baad noogu weyntihiin aad baad iigu weyntihiin walaalo qaaliya walaalo qalbiyaa tihiin maasha allah marka hadalku waxaa la yidhi haddii uu sii batay kiisi hore kiisi dambe ku ilowsi yahay hadda waxaan ku soconayaa inaan kuu sharaxo ama aan kuu sheego qaabka aad u xalin lahayd intaad hadda arkayso 2 jeer ayaan diray kood wax ilaa hadda wax kooda ima soo dhicin marka barnaamijkan ayaan rabaa inaan xalino sidee koodkan ku heli karaa anigoo raba inaan lacag kala baxo akoonkeyga oo kood la-aan uu yahay ila soo haddaba si marka dhibicdan gaduudan aad u baabi'iso dhibicdan gaduudan aad u baabi'iso profilekaagana uu maarata uu verified u noqdo koodkana mar walba meel uu diyaar uu kugu ahaado aad u sameysato waxaan kula wadaagayaa marka qaabkii aad u sameyn lahayd oo lacagtaadina aad la bixi lahayd tusaale waxaad halkan ayaad tagtay waxaad joogtaa profilekaaga withdraw ayaad rabtaa inaad sameyso withdraw markaad rabtid inaad sameyso waxaad sameyneysaa withdraw ayaad rabtaa inaad sameyso ama inaad lacag kala baxdo koonkaaga okay waxaad tiri halkan waxaad gelisay lacagtii aad rabtay cadadeeda intay la eg tahay haddii ay $1 tahay ilaa $1 bar ayaa ugu yar wax lagala bixi karo ilaa iyo intii aad markaasi kugu jirto koontadaada marka tusaale marka 100 ayaan rabaa inaan kala baxo magaalada iyo maarata caasimadda iyo maarata gobolka ayaan doortay waxaan kasii doortay qofka aan u diray lacagta kadibna confirm ayaan dhahay waxaan waayey marka koodkii ayaan waayey koodkii ma hayo marka waxaan sameynayaa marka waan ka baxayaa meeshaani markaan ka baxo waxaan tegayaa profilekeyga markaan tago waxaan taabanayaa qaybtan security ku qoran tahay markaan ku qoran tahay markaan taabto waxaan taabanayaa halkan authentication code ay ku qoran tahay waxaan si toos ah u taabanayaa open authentication code ay ku qoran ereyga macnaha open google authentication code waxaa la yiraahdaa koodka laba geesoodka ah aad rabto inaad maarata marka hore haddii uu ku degsanin applicationka wuxuu ku geynayaa play store toos ku geynayaa abka halkan ayaad kasoo degsanaysaa koley markaad soo degsato waxaad sameyneysaa marka authentication codeka aad ku xirato uu kuusoo dego applicationka waa kan applicationka kusoo degay waxaad sameyn doontaa
in aad tiraahdo maarata ii sheeg adiga akoonka aasaan usoo taabato marka kadibna uu ku geeyo authentication code-ka markuu ku geeyo aad get start tiraahdo aad taabanaysaa si toos ah wuxuu ku geenayaa application-ka. Marka application-kii ayuu geenayaa marka waa kan wuxuu halkan ii soo saaray marka 1xbet haddii application-ka uu kugu jiro 1xbet haddii uu maarata application uu kugu jiro wuxuu geenayaa halkan oo koodkan ay qaadanaysaa waxaad geenaysaa markaasi halkan waxaad geenaysaa halkan ayaad geenaysaa koodkii ayaad soo qaadaysaa koodka 1xbet waa kan copy ayaad leedahay certificate code halkan ayaa imaanaysaa waxaad ku leedahay basti kadibna confirm ayaad dhahaysaa. Marka markii aad confirm saarto halkan markii aad confirm saarto waxaa green noqonaya profile-kaaga ayaa buuxsamaya oo saas dhammaantood waa kaa hadirtaan hal meel oo guduud ah kuma jirto dhammaantiis waa wada green ama cagaar saad u fahantaa oo kaadka kaa weydiinayo ama kood weydiinta markaad joogto waxaad sameynaysaa kood kasta oo maarata aad uga baahato markaas 1xbet-ka markii ayadoo lacagta kaa xirantahay aad barnaamijkan soo sameyso waxaad keliya qaadanaysaa koodkan waxaad geenaysaa meeshii oo maarata markaasi lambarkii lagaaga rabay ama lagaaga baahnaa oo maarata ahayd withdraw-ga meesha ahayd ayaad basti ku leedahay. Markii aad dhamayso intaasi lacag la bixista markaad dhamaysato waxaan ku xasuusinayaa lacag la bixista markaad dhamaysato waxaad sameynaysaa halkan ayaad taabanaysaa security-ga waxaad halkan ayaad taabanaysaa halkan maxaa ku qoran deactivate code ayaa ku qoran deactivate code-kaas ayaad taabanaysaa. Deactivate code-kan wuxuu kaa rabaa code inaad soo geliso lacagtii waa kala baxday marka waxaa lagaa rabaa inaad iska tirto authentication code-ka waayo authentication code-kani waxaa laga yaabaa in application-ka aad deleedo appkani inaad deleedo inaad appkan iska deleedo kadibna maarata uu kugu xujeeyo appkan la-aantiisa inaad soo gelin ama koodkii sidii aad ku weyso oo markaasi telefoonkaaga simkaarkaaga uu kugu soo dhici waayo. Marka si ay taas u dhicin marka aad lacagta kala baxdo waxaad sameynaysaa authentication code-ka ayaad iska delete gareynaysaa ama iska tirtiraysaa deactivate ayaa leedahay waxaad ku deactivate gareyn kartaa marka inaad koodkan soo qaadato koodkan ayaad soo qaadaysaa halkan ayaad keenaysaa